السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرتني شرفت لك وحرن كانال كينا برف انجليش وأنا زكريا محمد. إن عشر كلمات وعشر كيني شنات أو أن ولي دحدي كاga jirno boqolka oo rahay aan u isticmaalno sida joogtada ah. Marka cashir kalimaanta waa cashir xiiso leh oo aan ku baranayno qaabka aan balan uga qabsan lahayn dhaqaatiirta isbitaalada qaabka balan uga qabsan lahayn insha Allah cashirkana kaga bogan doonta Abdulla Idmo. qaybtan waan sheegay waa qaab balanta loogu qabsado isbitaalada waa qaabka balanta loogu qabsado isbitaalada ama dhakhtarkaaga sida balan uga qabsan lahayd waxaan kugula talinayaa haddaadan soo daawanin cashiradeyni hore fadlan cashiradaas dib ugu laabo insha Allah linkigan waxaa ka heli doontaa qaybta commentiga Abdulla Idmo. Marka haddaan ku bilaabo middan koowaad haddaan ku bilaabo waxaan ku barnaa insha Allah markaan taleefanka wacano horta waa salaan mar walba waa salaan marka taleefan wacdid iyo qaabka adaabta ku jirto waxaa fiican inaad salaantid kadib saadantaada u sheegatid. Markii qaybtan waxaa ku baranaynaa qaabka u salaami lahayn xilliyada la joogo ama subax hadii la joogo ama duhur hadii la joogo ama aadii galab ama casir la joogo qaabka u salaami lahayd oo balanta u qabsan lahayd insha Allah Abdulla Idmo nala soco. qaybtan marka insha Allah halkan inaga bilaabanaysa jumladeena waa sida aan soo sheegay sida isbitaalada balan loogu qabsado. halkan waxaa wada hadli doona insha Allah Ahmed iyo receptionist qofka xafiiska balanta laga qabsada fadhiyo oo dhakhtarka ama qaybta soo dhaweynta qofka fadhiyo iyo Ahmed wada hadli doona. qaybtan waxay noo qoran I would like to see Dr. James. I would like to see Dr. James. waxaan jeclaan lahaa inaan arko Dr. James. waxaan jeclaan lahaa inaan arko Dr. James. Okay, marka halkaan ku bilaabo marka Ahmed wuxuu leeyahay xafiisku soo wacay. Hi, good morning. Hi, subax wanaagsan. I would like to see Dr. James. I would like to see Dr. James. Hi, subax wanaagsan. waxaan jeclaan lahaa inaan arko Dr. James. qofka xafiiska fadhiya ama xafiiska soo dhaweynta oo taleefanka qabto wuxuu leeyahay marka hello, good morning. salaanta waa laga qaaday. Do you have an appointment? Do you have an appointment? wax balan ah miyaad leedahay? Do you have an appointment? wax balan ah miyaad leedahay? marka dhakhtar isbitaalka soo wacdid su-aasha weydiinaysa waxay tahay ama waxa u baahan tahay u sheegaysaa oo ah inaad u baahan tahay inaad dhakhtarka aragtid. hadduu yahay dhakhtarkaas dhakhtar hore u la xiriirtay magaciisa sheegaysaa. hadduu yahay markii ugu horeysa balan qabsanaysa marka waxaa leedahay waxaa u baahanahay inaan balan samaysto oo dhakhtar una balan ka samaysta u baahanahay. I would like to make an appointment. intaas ku ekaanaysaa I would like to make an appointment. waxaa jeclaan lahaa inaan balan samaysto. afaanteena malina. Number 3 marka dhakhtarka u sheegtid magaciisa oo qofka dhakhtarka midka aad rabtid aad sheegtid iyo balanta marka su-aasha lagu weydiin doono insha Allah waxay noqon doontaa inaad dhakhtarka horey u aragtay iyo in kale maadaama dhakhtarka sheegtay magaciisa waxaa lagu weydiin doonaa dhakhtarka inaad horey u aragtay. marka waxaa noo qoran have you seen the doctor before? Have you seen the doctor before? horey dhakhtarka ma u aragtay waa su-aasha lagu weydiin doono insha Allah ama u badan tahay in lagu weydiin doono su-aashan have you seen the doctor before? dhakhtarka horey ma u aragtay ama horey ma u aragtay dhakhtarka horey ma u aragtay dhakhtarka. receptionist qofka xafiiska fadhiya xafiiska soo dhaweynta aa su-aashan ku weydiin doona have you seen the doctor before? dhakhtarka horey ma u aragtay. aad marka jawaabta waxay noqonaysaa hadaa dhakhtarka u aragtay yes I saw him a week ago. waxaan arkay isbuuc ka hor. I saw him last week. waxaan arkay isbuucii lasoo dhaafay. I saw him 2 days ago. waxaan la kulmay ama dhakhtarka arkay 2 maalin ka hor. or I saw him yesterday. shalay aan arkay. marka xilliga aragtaa sheegaysa insha Allah. Okay, number 4 marka su-aashan lagu weydiinaa waxay tahay ama aad dhahe qaybtan qusayso waxaan leedahay I haven't been feeling well recently. marka jawaabtan waxaa siinaysaa marka lagu weydiiyo sababta u qabsanaysid balanta ama dhakhtarka sababta u baahanta marka lagu weydiiyo waxa ugu jawaabaysaa sidan I haven't been feeling well recently. dhawaanahan si fiican maanan dareemeynin. marka jumladan waxay ka hadlaysaa xaaladaada guud ee dhawaanahan saad dareemaysay ee ka hadlaysaa I haven't been feeling well recently. dhawaanahan si fiican maanan dareemeynin. marka receptionist wuxuu ku weydiinayaa ama qofka xafiiska fadhiyo ama sidoo kale hadaa u taqaanid qofka soo dhaweey qaybta soo dhaweynta wuxuu ku leeyahay what is the reason for your making an appointment? waa maxay sababta u samaysanaysid balanta? what is the reason for your making an appointment? waa maxay sababta u samaysanaysid ama dhakhtarka balan uga qabsanaysid? waa maxay sababta dhakhtarka balan uga qabsanaysid? hadda marka su-aashan qofkaas wuxuu rabaa in ogaado xaaladaada
in balantaada lagu soo hormariyo ama dib lagu dhigo maadaama dad badan ay soo wacayaan ama dhibaatooyinkooda ay kala duwan tahay. Marka ahmiyadda waxaa la siinayaa qofka dhibaatadiisa ay badan tahay loo soo hormarinaya. Marka xaaladaada la rabaa in la ogaado kadib halka kugu habboon si boos lagaga raadiyo. What is the reason for your making an appointment? Waa maxay sababta uga samaysanaysid dhakhtarka ama waa maxay sababta u samaysanaysid balan? Marka aad waxaa ku jawaabaysaa I haven't been feeling well recently. Dhawaanahan maanan dareemeynin si fiican. Waa ila fahantiin amalina waa isla soconaa. Midda shanaad I need to see him urgently. I need to see him urgently. Erigan urgent macnaheedu waxay tahay degdeg urgent. I need to see him urgently. Degdeg ayaan rabaa inaan ku arko dhakhtarka ama degdeg ayaan rabaa inaan ku arko asaga oo ah dhakhtarka. Marka jumladan waxay ka saacidaysaa in balantaada lagu soo hormariyo oo muxuu ahaa waqti fiican aad dhakhtarka la kulantid. Marka halkan jumladan wada sheekaysiga waxaa soo galayso Axmed iyo receptionist oo ah xafiiska soo dhaweynta. Axmed wuxuu leeyahay I need to see him urgently please. Fadlan waxaan rabaa inaan dhakhtarka ku arko si degdeg ah. Fadlan waxaan rabaa inaan ku arko dhakhtarka si degdeg ah. Receptionist qofka xafiiska soo dhaweynta fadhiya wuxuu leeyahay okay, tell me your name. Magacaaga ii sheeg ama sidoo kale waxaa lagu dhihi karaa spell your name. Magacaaga hingaadi. Spell your name. Magacaaga hingaadi ama tell me your name. Marka insha Allah qaabka magacyada loo hingaadiyo cashirka la gooni ay ku qaadan doona hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Tell me your name or spell your name. Magacaaga ii sheeg ama magacaaga hingaadi. Waa su'aalaha marka magacaaga lagu weydiinayo qaabka lagu weydiin doono. Midda lixaad when is the earliest available slot? When is the earliest available slot? When is the earliest available slot? Goorma ayaa ah booska ugu horeysa ee la heli karo. Goorma ayaa ah booska ugu horeeya ee la heli karo. Marka slot waa boos. Dhakhtarka marka la kulmaysid lambar lagu siinaa somahan. Lambarkaaga sugaysaa markii la soo gaaro aad dhakhtarka u galaysaa. Xilligaas marka waxaa la lahaa ama lambarkaas waxaa la lahaa slot. Waa waqtiga kugu habboon maadaama dadka dhan hal waqti la wada balamin karin marka adiga waqtigaas lagu balaminayaa. Goorma ayaa ah booska ugu horeeya ee la heli karo dhakhtarka ama goorma ayaa ah goorta la heli karo dhakhtarka ama balanteeda goorma noqon doontaa. Waa su'aal u baahan tahay inaad ogaatid marka magacaaga u sheegtid. Axmed marka su'aashan qaadanayo wuxuu leeyahay when is the earliest available slot? When is the earliest available slot? Waa goorma xilliga la heli karo dhakhtarka. Marka xusuusnow jumlooyinkan qaabka ay soo qoran yihiin waa qaab si taleefana balan ay u qabsanaysa dhakhtarka insha Allah. Inta badan muxuu ahaa dhaqaatiirta marka isbitaalka ama isbitaalada kale uma baahnid inaad xafiiska tagtid oo balan soo qabsatid. Waxaa kaaga filan kaliya inaad wacdid. Marka kan waa qaab si taleefan ah insha Allah. Haddii wixii ka dambeeya balan waa qabsan kartaa ama ciyaalkii kulliga u qaban kartaa. Receptionist wuxuu ku jawaabayaa there is a slot. Waxaa banaan boos. There is a slot available tomorrow. Waxaa banaan boos at 10 AM in the morning. Beri subaxdii saacada markay tahay 10kii subaxnimo waxaa banaan boos. There is a slot available tomorrow at 10 AM in the morning. Beri subax waxaa banaan boos oo muxuu ahaa saacada markay tahay 10kii subaxnimo aad iman kartid. Fahantiin sarajinayo. Mid ugu dambeysay toddobaad. Marka booska lagu qoro waxaa u baahan tahay marka inaad u mahadnaqdid. Mahadnaq waa shay qaali ah. Marka wada hadal qof la bilaabayso waa inaad salaanta marka hore marka soo xiriirsid waxa u baahan tahay waa inaad u mahadnaqdaa qofkaas ama telefoon ha ahaado ama qofka hor taagan ha ahaado. Okay, thank you for your help. Waad ku mahadsan tahay caawinaadaada. Waad ku mahadsan tahay caawinaadaada. Thank you for your help. Waad ku mahadsan tahay caawinaadaada. Axmed marka hadalkan leh thank you for your help. Waad ku mahadsan tahay caawinaadaada. Qofka xafiiska fadhiisan wuxuu leeyahay you are welcome. We will see you that time. Adigana soo dhawow xilligaas arki doonaa ama xilligaas aan ku arki doonaa. Goodbye nabadgelyo. Goodbye nabadgelyo. Thank you for your help. You are welcome. We will see you that time. Waxaan ku arki doonaa waqtigaas. Goodbye. Waa fahantiin sarajinayo. Cashirkeeni maanta waa inuu halkaas inteenan cashirka xig ku kulmeyno. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.